بروسسك inaad challenge garayso ama tagyiir isbedel inaad raadisaa laba shay bay u baahan tahay bay dhahay koowaad waa search for opportunities raadi fursadaha nololeed ha quusan weliga hayso odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there is a way whatsoever bulshada ay ku sugantahay there is a way hogaamiyaasha dunida la yaqaan xataa kuwa maadiga meelan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen wadankan yar ee Hong Kong la yiraahdo waa taqaanay dunida dabadeedu ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba deedulna waa 24 kilomitir maxaad u malaynaysaa wadan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado ciidda guriga lagu dhiso Malaysia ka qaadan jiray adoo qiyaas wadan ciidana soo dhoofsanaya muxuu haystay wadanka ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay wadannada dunida ugu dhaqaalaha sareeyo ku jira ugu horumarsan buu ku jira around 2000 wax ku dhow oo technical school isabuleeyay bay dhaadaan qiyaas adigu isku wadan yar oo inta leeg nin qaayida 20 sanadood hogaamiyay oo cid walba dhaafay ra'iisul wasaarihiisu waxaan filayaa shanta madaxweynaha ama shanta nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamusho ka mid yahay waa wadan 24 kilometer square dhulku haystaa weeyaan waxay yiraahdaan qaa'idku he should challenge waa inuu noqdaa qof nolosha challenge gareynaya qof isku dayaya inuu caqabaadka ka talaabsado taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya ibxath aan الفرص nin sheekha bari qisam uga sheekeeyay wuxuu yiri nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xirta aad u jeclay iska daa xirteen mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyay taqwad baa ilaahay siiyay cilmi baa ilaahay siiyay alla ka cabsi baa ilaahay siiyay laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyay islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladu ku tukanay inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata darigu karin biyuhu dhaamin dabku shidi iyada dhanbu cuntada siisiin markaas ay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmay bay odhan hadalka keeni maayo uu khidmayno uu khidmaya una ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa la yidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddee toola waan daalay xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhiyo xaabo guraayo oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysatay inay kaarqabtadan waa maxay sheekha diratay walla habaarka ku dhici taabo markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta aadii xaaska aad iga dhigtay umul ciyaalka ilaahow ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhay muro marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmi u tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu libaax socdo un baa u yimid oo hor fadhiistaa layidhi sheekh xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kale ka soo saaray magaaladiiba la soo maray sheekhiyo libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisi daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sidaa ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaa bay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tegi nabiga ku salliya inna kayda kunna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso
waxay ku leedahay dameer fool xumad wata maanta xagga ka keentay iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhi maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegey waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaa bedel sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha allah ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina mee baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyay innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadka guriga jooga ilaahay subxaanahu wa tacaala fadaa'isha waxaa ugu horeeya horta oo xuska ilaahay laga helo in qofkii ilaahay xusa ilaahay jalla wacalaa uu xusaayo bal adigu un fiiri oo baroobey ilaahay jalla wacalaa ayaa kurabta iyo murugooyinka kaa feedayo ilaahay jalla wacalaa ayaa ku soo dhowaysanaya ilaahay jalla wacalaa ayaa ku jeclaanaya ilaahay wuxuu leeyahay fadkuruunii adkurkum ixusa aan idin xusi washkuruu lii igu shukriya walaa takfuruun ha igu gaaloobina ilaahay jalla wacalaa nebigii uu noo soo diray xabiibkeeni wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama man qaala subxaana allaahi wa bixamdih ninkii hal mar dhahaa subxaana allaahi wa bixamdihi gurisat nakhlatan fi ljanna geedtimireed ayaa jannada loogu abuuraya maalinkii haddii aad badsatana waa lagu badin haddii aad yaraysatana waa lagugu yarayn kolley waa waxa adiga haysato oo adiga aad qoranayso haddii maanta aad dhahdaa 500 ilaahay jalla wacalaa 500 oo geed ayuu kuu abuurayaa haddii aad dhahdaa 200 ilaahay 200 ayuu kuu abuurayaa maxaa yeelay adigay kugu xihan tahay waad badsan kartaa waana yarayn kartaa nabiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi kelimataani 2 kelmadood khafiifataani cala allisaan carabka way ku fududyihin in la dhaho haqiilataani fi lmiisaan miisaankana markii la saara aad bay ugu culus yihiin xabiibataani ila araxmaan allaha jalla wacalaa raxmaanka ahna wuu jecel yahay muxuu ku tilmaamay subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alcadiim kam imise jeer ayaan ku celin karnaa subxaana allaahi alcadiim subxaana allaahi wa bixamdih subxaana allaahi alcadiim subxaana allaahi wa bixamdih baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsaneed iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi maalintuu dhimanaya abudar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda la yidhaah xaaskiisiibuu u yeedhay isagoo sakaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi naa maxaad la oyaysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotona kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba aniga i aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo maskiidka dhex fadhin oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa iniga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaacad muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalintaa aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doontay igu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas
مسلمين تمان تأدبية جوكتا يا مسلمين تقرنك عالم كجوكتي فرق جاي نوضح يقين خبر كالنبي محمد أي كم مغلين أي بقول يكرو مسناي بقول نكي نبي قو شاقي بودو وانيقا إعلا كل منا يرقي كلو دوي وضع دنتين تولا يمقالة يقرية يريركو كل دنتين نكي إعلا كل منا وانيقا جماعة النبي قو شاقي بآسكي كاكاي بالي دونتي هل كاو بحو جوكسي بوري جماعة مداركي دونتاي يساقونا سكرات كي باهيا تور تابع بور بيفوشا حقا وحكا صعوداي اكتا هدنا way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saarta hadana way ku noqotaa sida u noqonaysay ba aragta jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii ba markaa sida u tidhi baladis markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan xad maxaa cidlada ku dhagay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam nin nabi maxamed saaxiibkiya ayaa cidlada ku dhimanaya kaalayo ila aasabay ku tidhi markaasay dhaadeen oo waayo waxay dhaadeen waxay tidhi waa Abu Darr al-Ghifari radiyallahu anhu Abu Darr baa cidla ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay dhaadeen nufdihi bi aabaayina wa ummahatina hooyooyinka iyo aabahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillaah baa cidla ku dhimanaya markaasay Abu Darr oo sakaraad ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen dhabta ay ku qabteen oo indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta muuminiin baatino nabiga inuu sii sheegay buu yidhi حديث النبي عمر كيبو بشاري تكلنا وحيد دقيستا لبقف أو مسلمين ولا الكون مدنتو هذا يقول صبران وأين نوين واحتسابنا إلهي أجر كالضلبان ويقول صبران أدون كاس النار ماركي ونقد من يا ماتو علا كل من يا نبي قال الشيء هاي وين يسك الصبر بكويدي أريك صد هذا النيشك وحويان مرة كفن يقول فلان هدان هايستو أيدا كفن اللي يقدر لكن ما هايستو xaaskayguna mara kafan igu filan haday haysana maradaaba kafan la iga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhageysta walaalaha iyo ragiina meesha maraya dawladda islaamka nin u soo shaqeeya haduu inagu jiro dharka uu sitaa aniga kafan ha iga dhigin buu kafan uga ma bari dharkaas muxuu dhowraya xaaraantu ka dhowraya jirkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa زاد بوتا زاد كأو آخر لا تجايو إنه كبروا بايو دي ديحي إنك نزمك كان الكن مرينا وحق عني بوالله عنا لا وحول بعود الصومالي قاجدهم بحارانا بيكوننا يا قاجدهم بحارانا كل جسم نبت في الحرام فالنار أولى به جرك الصو حارك كرب النبي يقولي النار تاو حق له عني دون تبو رسولك حارانتو اسكدا اديق الى شاوداده تاثير شاوداده way saameyn ubadkaaga xaaraanta taqwaduna awlaada iska soo baxda warac awlaadu ka soo baxa nabi reeben israa'iila dagaal buu galay dagaal jihad dagaalkii oo socda oo gaali islaam la isku leynayo salaadii casar baa gaadhay markaas nabiga uu sheegay ilaadeen يا نبي الله صلاتي عصر باتاغن صلاتي باتاغن نبيي وحالدي فرتيسو كفيق عاد صلاه كفيق والنبي الى هي دورته الرسول مرقاس ادغو امر باد كسوعتا انكنا امر بان كسوعنا كان مرقيسا كودا سوعنو ايان ويديسنay inuu ku joojiye halka noo joog burila aan gaalada kala baxayno halka ha ka dhaqaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay way wadeen gaaladii bay jabiyeen way ka guuleysteen qaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guuleysteen ayuu nabiga ku yiri hadda inoo eega wali halkii bay joogtaa soo ma joogtaa salaada imika tukanaynaa buu yiri marka salaadii tukadeen buu yiri haddaba imika iska soo iska dhacbu ka yiri horumarka caalamku ma gaadhay imika caalamka horumaray maxaa horumaray birahan qayliya horumaray birahan wax duubaya horumaray bani aadamku ma horumarin maanta hoos baan u dhacnay inaku maanta ay subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlayay biyaha wuxuu yiri afara'aytumul maa'a alladhi tashrabun biyaha aad cabaysaan ka warrama ayuu leeyahay ilaahi jalla wa ala antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun
idinka miyaa samada ka soo dejiye mise anagaa soo dejinuu leey ilaahay subxaanahu wa tacaala low nashaa'u jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun haddii aan doonnona waxaan ka yeelaynaa uu leeya ilaahay biyo qaraara oo aan la cabi karin oo aan wax lagu karsan karin falowlaa tashkuruun fahallaa tashkuruun ma shukrinaysiin miyaa oo ma soo noqonaysaan oo mahadnaq iyo maaragtaay shukri lama imaanaysaan miyaa buu leeya ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu filanba ibraahim calayhi salaam dab intoo loo shiday baa lagu turay manjaniiq baa lagu turay manjaniiq min makaanin baciid marka ibraahim markuu sii dhacayayna malaa'igtoo dhan baa u timiday markaas ugu dambayntii jibriil baa yimid calayhi salaam alaka xaajiya ibraahim buu ka yidhi ama ilayka falaa wa ama ila allahi fabalaa yaa jibriil ma aniga may maanta adiga waxba kaagama baahni laakiin rabbiga waan u baahanahay buu yidhi kama maarna ilaahay ibn cabbaas wuxuu yidhi hadalkii u dambeeyey ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray uu u lahaa xasbi allah wa nicma alwakiil kaafiyahaygu waayo waa ayo waa allah weeyaan ilaahay waa qaadir calaa kulli shay ilaahay awood wuxuu u lahaa dabka inuu biyo ku baktiyo awood wuxuu ilaahay u lahaa inuu dabka dabeed ku kala kaxeeyo laakiin ilaahay sunnada ma isticmaaline qudradduu ilaahay isticmaalayo wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim dabkoo holcaya oo sifadiisii aanan laga zulin ayaa ilaahay amar wuxuu ku riduu yidhi ibraahim dushiisa waxaad u ahaataa qabo u haw bas iyo nabadgelyo iyo qabow siduu doona yala waa ilaahay dabkii uu holcayaa sifadiisii uu leeyahay laakiin ibraahim calayhi salaam xaaddi jirhkiisa ku taalla ma gubi karaayo bal nolosha adduunyada ugu fiican ibraahim waxay soo martay baa la yidhi 40 maalmooduu dabka ku dhex jiray wa ibraahim calayhi salaam qisaskiisa qur-aanka way ka buuxaan qisas kullahaa iimaaniya laakiin ayaa ku cibro qaadanaya maanta islaantiisii haajara iyo ininkiisa ismaaciil afka intuu ku qaatay buu leeyimid 4 buuro dhexdood min masjid al-aqsa ka soo qaaday qudus ilaa wuxuu keenay ard al-xijaaz dhul kulul oo biyo iyo baad aan lahayn oo roobku ku yar yahay oo dadna ay ku noolayn oo xataa geel la hadhaysta aanan lahayn halkaa intuu ibraahim dhigay haajara iyo ismaaciil ayaa lagu yidhi ka noqo iskaga noqo lagu yidhi oo amar haajara dhaadhac oo dhaadhacday ilmahaaga qabso way qabsatay biyo intanaan kuu hayaayo hoo la dhaadhac way la dhaadhacday baad intanaan kuu sidaaya qabso way qabsatay markaa buu yidhi salaama waa maka halkay maka ku taallo weeyaan dadka xajiyey baa yaqaanee waraysta kulaylka iyo rafaadka iyadoo zamankeennan maanta nafaqyo iyo wadooyin iyo wax walba lagu diyaariyo biyo qabow haddana maalinta xujaydu ay yimaadaan waxay yimaadaan iyakoo daallan bay yimaadeen oo madoobaaday meeshaasoo asbaabaan lahayn ka warrama berigaas halkaasuu ibraahim haajaro kaga dhaqaaqay markaasay haajara ka daba hadashay ku tiri ibraahim ma amar ilaahay baa markaasuu yidhi haa ilaahay nima dayacayo iska socod bay ku tiri ilaahay nama dayacayo haweenaydaa iimaankeega ka warrama kalsoonida rabbigeeda ay ku qabtay eega xaaladda maanta muslimiinta caalamka ku nool ku qiyaas asbaabta lagu noolaado agteeda ma taallo baadiye biyo ma haysato wehel ma haysato meeshu waa waadi catash ree yamaneed markay badaacaddooda ay shaam u doonanayaan habeen inay maraan mooyaane maalin ma mari karaan baa layidhi hadday maalin ay ciidada ugu soo baxdo oon bay u dhimanayaan halkaas ayaa nebi ibraahim lagu yidhi haajara iyo ismaaciil halkaa kaga dhaqaaq deedna adiguna qudus ku noqo yaa ilaalinaya markaa yaa ilaalinaya yaa arsaaqaya yaa daryada ka dhabaaya ilaahay baa ka dhabaaya laakiin waa usrad qalbigooga macrifada ilaahay baa degtay halka innaka maanta zamankeena muslimiinta tawxiidku carabka uu noo dul yaallo usradaas iimaanka iyo tawxiidku qalbigoogu dega qalbigooga idan laa yudayacana ibraahim marba haddii amar ilaahay aad nagu dhigto nagaga noqotay nama dayacayo socod ay ku tiri isagaa nagu filan buurta gadaasheedu markuu ibraahim istaagay uu gartay xataa hadduu soo daymoodan inuusan arkaynin ducaduu ku duceeyo waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دعاء سوحة وكبل أبي دين بو كبل أبي أدوية كما بلابي إنك مركان دعاء سنة إن دعاء دينا وحن كبل أبناء أدوية له العبسي له سنة كان عيالك امتحان كان مريانها باصان الدنيا ده إلا إله إلا ودي سوي في عنتهاي لكن هدايته الرئيسة دينته الله الرئيسية إبراهيم عليه السلام وجد ما شوريك صدقي إنه بيلا عنتهاي إنه بال عنتهاي إنه هل إنه كويس وركيا لكن دعاء واحد كبل أبي الدين بكبل أبي ربنا ليقيموا صلاة وحجرنا يا حد يركع الصلاة أي ليهين هذا الدين ليهين هذا إلهي حليل سليهين أدويدنا وهليا لولا شقفك مسلم في الدين بيكبل عبطاء أدوية كما بلعبط ده نمر قاسا لولا شوحي نقطة عديدي لذلك النبي عليهم الصلاة والتسليمات ماشي دعاء كأبار يا مفير صدع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس وارزقهم من الثمرات من الله عنك وارزاق من عود بيسي وارزاق دي كلجي ميل جوغا مغلي فتك دحديدو laga leeyahay beerta hebel u geeyo daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geeyo wiciya daruurtii buu eegay meel bay ku daaday barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisa beerta mangadka ugu wicinayo markaas uu magacii buu sheegay magacii uu ka maqlay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tagay buu rasuulku yiri markaas uu gari maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yiri wallahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku sameeysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga ku keenay wuxuu hadaad weydiisay beerteedu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiya midhaheega qayb beerta ayaa ku celiya qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqada istaagu yiri wal fiirs حديث وهذا صحيح وبني إسرائيل أي نبي قلنا الشيء قصص صحيحة محوكو الشيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلقوا برا رجنيا حداد عمل كاجا هجا جسد حداد أذيك يا إلهي حرير كي نيدها يا حداد هجا جسد نرى الشهادات بيدن يتأخر وحبك حمان ما يعمل